islaamku waa guulaysanaya muran kuma jiro in loo camal falo oo sidii uu guulaysan lahaa laga shaqeeyaana waa waajib diiniya cinwaanku intaasuu tilmaamaya dunida waxaan ognahay bini aadamku waa noolaha inta badan ka fakara mustaqbalka maxay noqon waa noolaha u khatiida ee ku talagala mustaqbalku wuxuu noqon doono inuu sawiri karo ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa mustaqbalka xaqiiqadiisa inuu isagu og yahay قل لا يعلم الغيب من في السماء قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إلهي وحليه سبحانه وتعالى ما أوغا عرق يدل وحشوغا غيب كما أوغا ألمو يعني سبحانه وتعالى حقيقة هن إلهي ينبوغ لكن بن آدم قوة الصادالية isagoo saadaashiisa ku salaynaya tagtadii hore ama taariikhdii hore iyo sidii wax ahaan jireen isagoo ku salaynaya hadda duruufta taagani sida ay tahay ayuu markaa ka saadaaliyaa mustaqbalkuna siduu u ekaan doono dadka wax saadaaliya marka dadna waa dad khibro u leh oo daraasaad badan ama cilmi baadhis badan intay sameeyaan mustaqbalku uu muuqdo ilaa xaddin maa sawiran kara sida wax noqon karaan dadka badhna taariikh hore iyo waxba toona ma eegaane waaqaca markaa ama laxdada lagu nool yahay unbaa intay u muuqatay moodaan inay dunidu madoobaatay oo mashaakilkaa markaa haystiya waxa unbaa intuu ka bato ayuunbu is idhaahdaa dunidu waxba isbedeli maayaan sawta halkan la gaadho nooc min alyaas ayaa ku dhaca mustaqbalkaasi eegistiisa muslimiintu aqoon-yahankooda waa baadhayaan wax badan baanay eegayaan oo iftiiminayaan cagsigeedana gaaladuna waa baadhayaan buxuuth cilmiya iyo daraasaad akademiya cilmi baadhisyo dhab ah khubaro dhab ah oo maal iyo maskaxba ay gelinayaan bay ku baadhaan oo eegaan mustaqbalka muslimka soo noqonaya waxaan odhan karnaa aqoon-yahano badan oo ay leeyihiin waxay rumaysanayaan laa maxaala inuu islaamku soo noqonayo sababo badan daraaddood laakiin dee laysma dhiiba bay rumaysan yihiin ma la dibdhigi karaa ma 20 sano ku soo noqon ma 50 ma 100 ma 200 haddaynu 200 gaadhsiin karna dee muddaynu haysanaa weeyaan marka iyagu baxhiga waxay u samaynayaan inay ogaadaan niqaada dacfigaaga iyo meelaha xooggaagu ku jiro iyo meelaha dacfigaagu ku jiro saa ogeed cidda cadowga ahi waxay isku dayaysaa pointiska ama nuqdadaha dacfigaana inay buunbuuniso xoojiso ballaadhiso tiro badiso meelahaaga quwadana sidii ay u xadidi lahayd ee u yarayn lahayd inay tijaabiso muslimka waxaa la arkayaa bari iyo galbeedtoona ma rabaan reer galbeed islaamnimo cadownimo taariikhiyo horaa ka soo dhaxayso waxay rabaan inay carqaladeeyaan intay carqaladayn karaan bariga soo socdaana kama roona oo China iyo gruubkiisu kuwanaaba ahlu kitaab labada ah kuwanaaba waxyaabaha qaarkood inala wadaaga laakiin China iyo gruubadooduna waa laga yaabaa duruufaadka qaarkood masaalixdu inay soo dhacdo laakiin ka mabda ahaan way ka fogyiin عالم الإسلامي دتك حكومانه لبدا بين كسف فوقي بابا لغا يابا ويغونا دنتو دينا واركيان اسلام نمدا سيناني كسو نقونين وايا نينكا سياسيغا waxa maslaxadiisa ugu jirta laga bafujiyo adiga goor maslaxad mala wuxuu arkaya
sida tan inuu dadka gacan bira ku hayn karo. qofka caadiga ahi markuu eego wadciga muslimiintu ay ku jiraan oo ah dhaqaalahoodu inuu dambeeyo, siyaasadoodu inuu dambeeyo, maalku in laga maal badan yahay, hubka in laga hub badan yahay, niyadjab badan baa dadka qaar ku abuurma. laakiin dhan kale marka la eego waa ummadda ugu da'yaree dunida ku nool. that means Soomaali maanta haddaynu eegno waxaa laga yaabaa boqolkiiba 70 inay 30 jir ka yartay. that means waa xoog soo socda. masaajidka imika haddaan sidaa u eego waa cirro laba qof iyo laba laga yaabaa inaan arko. macnaheedu waxa weeyaan waa ummad dhalinyaro ah. Soomaaliya qudhana maahe waa caalamulislaam oo dhan baa noocaasiya. cagsiga haddaynu galbeed iyo bariba eegno waa dowlado gebgaboobay iyo dad gebgaboobay iyo maskax gabowday. da'yartoodu da'weyntaa ka badan, inta benshanka gelaysa ayaa ka badan inta soo gelaysa shaqada. that's why in badan qaxoonti u qaataan. qaxoontigani waxa la rabaa in lagu buuxiyo meeshii dadkii shaqada gelayay, waayo dadka ka sii baxaya benshanka noqonaya ka badan da'yarta shaqada soo gelaysa. idan haddii xagga bini aadamka laga eego caalamulislaami waa dhalinyaro, waa dad xoogganoo mustaqbal loo soo socda. haddii laga eego dhulkay degan yihiin waa dhulka dunidaba isku xidha. cidda dhulkaa xukuntaa dunida xukunta. waxay dhahdaan dunidu badaha dunida isku xidha cidda xukuntaa xukunta. 5-6 kanaalee dunida isku xidha mid mooyaane inta kale muslim buu ku yaallaa. Panama Canal oo labada Maraykan dhexdooda ah ayuunbaan gacanta muslimka ku jirin. ama inta kale waa Baabil Mandab, waa kanaal Suways, waa Jabal Taariq, waa Basfar, ama marma labada uu leeyahay Turkigu waa Hormuz kan Iiraanta iyo Cumaan iyo intan u dhaxaysa. waxa kanaal dunida isku xidha gacanta muslimku ku jira. waa wasad dunya. Maraykan intaasu xoog ku jooga si uu maamuli kariyo Ingiriis. Turkiga intaasay heshiis kula galeen 100 sannadood. khilaafadii Cuthmaanigii markii la ridayay heshiisyadii laga galay waxa ka mid ahaa 100 sano ee soo socda kanaaladaas inaanu iyagu lahayn free in lagu mari karo. 2023 ayay ku dhan yihiin 100 sannadood. 1923 ayuu ahaa heshiisku. 100 sannadood waa 23 markay gaadho ayuu dhammaanaya. wixii ka dambeeya gacanta Turkiga ku wareegaya. gacanta Turkiga hadduu ku wareego Russia dunida meel ay kala xidhiidha ma leh, Turkiga inay marto mooyaane. biyo kululba ma leh iyo wax xagga ka xigo oo dhame. si kale haddaynu u tilmaamno waxay degan yihiin meel Ilaahay dhigay energy-ga dunida. shidaalka dunidana 70-80 wax ku dhow waxa Ilaahay hoos dhigay inta muslimku dego. khaasatan iyo meelaha laga soo bilaabo ilaa iyo inta muslimku dego ayaa shidaalka energy-ga dunida hoos yaala. caalamulislaami wuxuu ka mid yahay wadannada aan maadda khaama loo soo dhoofinin ee maaddada khaamka ee wadannadooda taalla wax kastaba inay helayaan. anything loo baahan yahay dhulkoodu inuu leeyahay oo tasniic ama industrigu uu baahan yahay. haddii waddanku dhalinyaro uu yahay, haddii mowqicu ku dhaca uu yahay mowqaca dunida maamula, haddii energy-ga dunidu gacantooda ku jiro, hadday maaddada khaamka ay helayaan ay iyagu haystaan, waxaa ka dhiman oo keliya ciddii isku hagaajin lahayd. alxanaka siyaasiya qaa'idkii lahaa ee saaxib الrisaala ah mid ka mid ah aqoon-yahanka reer galbeedka wuxuu leeyahay waxa qura nimankan buu leeyahay waa inaynu xoog isaga ilaalinaa, waayo waxa qura u dhimani waa salaaxdiin cusub oo soo baxa buu leeyahay. nin risaalana sita, xanaka siyaasiyana leh, mabaadi'na rumaysan,
maamulna garan kara iyo si dad loo hogaamiyo caalamulislaami intaasaa ka dhiban risaalo daa'ima bay ay tilmaamayaan oo aan marnaba isbedelina way haystaan dadka kale kutubtoodii way qaldantay towraaddii rasmiga ahayd ma taallo injiilkii rasmiga ahaa ma yaallo bale maanta waxay maraysaa xataa afka markay noqoto dowlado waaweyn oo dunida ka mida baa tijaabinaya hadda arkiifyadooda rasmiga in af carabi lagu qoro waayo af carabigu waa afka qura aan isbedelin af carabigu 1200 sannadood buu sidii siiyey yani ninka luqa carbeed maanta bartay ashcaari aljaahiliya iyadoo loo fasirin buu akhrinaya waa carabiga habuu ku qorayay kitaabka quraanka ah ee carabiga habuu ku qorayay laakiin ingiriis oo luqadiisu dunida ugu xoog badantay Shakespeare wuxuu qoray in loo tarjumo modern Englishka mooyaane in yar ba akhriyi karta waa 700 sannadood ka hor 700 sannadood ka hor wixii la qoray dee af ingiriisi ba 600 sannadood meelahaas u jira ee ka horreeyay Germanic languages ku ka tirsanaa yani Latin language buu ahaa waxaan uga dan leeyahay risaaladooduna waa kayd yaallo sidiisii u yaallo cid ku dhaqantoon u baahan aan marnaba taxriif gelin aan marnaba lumin ilaahayna uu quraankiisa ku sheegay inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahaafidun ana soo dejiyay ba ilaahay ana ilaalinaya ilaahay wuxuu u ilaaliyay xataa afku ku qoraa in rabbi dhowro culamadii muslimiinta hore buxuuftay samaysay idan luqada carbeed waa tii nabi maxamed ku hadli jiray alayhi salaatu wassalaam waa tii abu jahl ku hadli jiray